sheegay in cunaqabataynta lagu soo rogay dalkiisa ay ka dhigan tahay khatarta ugu weyn ee hadda soo food saartay dhaqaalaha adduunka balse waxa uu sheegay in aanay shaqaynayn isla markaana aanay suurtagal ahayn in ruushka la godoomiyo madal dhaqaale oo ka dhacday bariga fog ee ruushka ayuu Mr Putin ka sheegay in Aasiya ay kor u kacayso halka reer galbeedku ay fashilmeen waxa uu ku eedeeyay wadamada reer galbeedka inay isku dayayaan inay habdhaqankooda ku soo rogaan dalalka kale Mr Putin waxa kale oo uu ku andacoonayaa in haruurka Ukraine ee hoos yimaada heshiis ay qaramada midooba garwadeen ka tahay ay u socdaan oo kaliya dalalka qaniga ah ee aan loo gudbin kuwa u baahan waxa uu sheegay in uu doonayo in uu kala hadlo dib u dhiska ama dib u eegidda heshiiska 60 baabuur oo siday haruur ka yimid Ukraine ayaa gaaray Ethiopia waa gaarsiintii ugu horeysay ee gobolka soo gaarta tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka dagaal sokeeye oo ka dhacay Ethiopia ayaa sababay musiibo bini'aadanimo oo qoto dheer hay'adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in sahayda ay qamadiga ah ay caawin doonto quudinta in ka badan 1 milyan iyo bar oo qof muddo bil ah dhowr bilood ka hor heshiis ogolaanaya in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo Ethiopia ayaa la gaaray si loogu gurmado dadka ay dagaaladu saameeyeen laakiin dagaalada soo cusboonaaday amaba ka soo cusboonaaday waqooyiga Ethiopia ayaa ka dhigaya in dadka la gaarsiiyo raashinka in ay adkaan doonto gaar ahaan gobolka Tigray ee ay colaadu ka taagan tahay duulaankii Ruushka ee Ukraine waxa uu qayb ka qaatay cunto yaraan iyo sicir barar saameeyay guud ahaan qaaradda Afrika midowga Yurub ayaa xafiis ka furtay qadarkaasi oo loo arko inay cadeyn u tahay muhiimadda sii kordhaysa ee dawladda Khaliijka ee xiisadda tamarta ee caalamiga ah ee sii xumaanaysa madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa la kulmi doona amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani gelinka dambe ee Arbacada maanta ah Qatar ayaa kamid ah dalalka hormuudka u ah soo saarayaasha gaaska dareeraha ah ee dabiiciga kaasi oo si aado ay baahidiisa Yurub ugu soo kordhayso tan iyo markii uu Ruushku galay Ukraine Mr Michel ayaa soo sheegay amaba sheegay in midowga Yurub uu raadinayo xiriir dhow oo la yeesho qadarkaasi oo ku saabsan dhinacyada tamarta horumarinta dhaqaalaha iyo amniga safarka dalkan Qatar waxay calaamad muhiim ah u tahay rabitaankeena siyaasadeed ee aan ku xoojinayno xiriirka Qatar rabitaanka siyaasadeed oo aan ula jeedo inaan wanaajino xiriirka aadka u wanaagsan ee Qatar iyo kor u qaadista heerka hamigeena guud midowga Yurub ayaa daha ka qaaday hindisayaal qiimo dhimis lagu sameeyay gaaska Ruushka taasi oo qayb ka ah talaabooyin dhowr ah oo lagu dhimayo qarashaadka tamarta madaxa komishanka Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay in la dhimo dakhliga Ruushka ee maalgeliya dalka Ukraine madaxweyne Vladimir Putin ayaa sheegay in Ruushka uu joojin doono gaaska iyo saliidda haddii la soo rogo qiimaha komishanku waxa kale oo soo jeedinayaa joojinta qasabka ah ee midowga Yurub isticmaalka korontada inta lagu jiro saacadaha ugu badan qiimaha korontada iyo shidaalka ayaa sare u kacay kadib markii Ruushku uu hoos u dhigay gaaska uu diri jiray Yurubta qaybaheeda kale howlwadeenada nuclearka ee Ukraine ayaa sheegay in ay taageeri doonaan in ciidamo nabad ilaalin ah oo qaramada midooba ah la geeyo warshada Zaporozhye ee Ruushku u haysto maalin kadib markii ay hay'adda qaramada midooba u qaabilsan ilaalinta atomikada ay ku baaqday in la sameeyo aag amaan ah oo ku wareegsan goobta waxa ay xaaladda warshada nuclearka ee Yurub ugu weyn ku tilmaantay mid aan la sii wadi karin sida uu dhigay amaba dhigayo qorshaha IAEA labada dhinac ee dagaalamaya midkoodna ciidan ma geyn doono aaga balse Ruushka ayaa ku adkeysanaya in dhowr arrimood amaba arrimo dhowr ah ay u baahan yihiin sharaxaad dheeri ah fadhi degdeg ah oo uu yeeshay golaha ammaanka ayaa madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku dejiyay tallaabooyin lagu abuurayo aag ka caagan hubka nuclearka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbad uu jeediyay waxa uu ku muujiyay inuu taageeri karo fikradaasi
Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гросі створити зону... marka laga hadlayo soo jeedinta agaasimaha guud ee IAEA Grossi ee ah in la abuuro aag laga ilaaliyo saldhigga waxaan u baahannahay inaan eegno waxyaabaha gaarka ah ee hababkan oo kale ah si dhab ahaaneed waxay ilaalintu ka dhigan tahay haddii nuxurka hindisahan uu yahay in laga saaro aaggan nukliyeerka tani waa macquul sababtoo ah waxay ahayd joogitaanka militariga ruushka ee ka dhigay saldhigga Zaporizhzhia inuu qarka u saarmo inay ka dhacdo masiibada dhanka shucaaca ah markaa kadib waxaanu baritaari karnaa aagga ka caagan ciidanka демілітаризовану зону захисту.